waxaynu socday koorskeennii complete wordpress website inagoo ku guda jirnay projectkeenii koowaad oo ahaa portfolio website. laba muuqaal hore waxaynu kusoo dhisan karaynay qaybo kamid ah websitekeena. muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa gabagabada websitekeena. okay, waxaynu soo dhisan karaynay muuqaalkii ugu dambeeyey about me sectionkaas ayaan ku joojinay. waxaynu maanta dhisi doonaa qaybta what I can do ama surfaceska flow me. waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto waad ka mid noqoto saaxiibada nagu xidhan like iyo share. okay, edit with elementor baan leeyahay. edit with elementor markaan idhahdo edit with elementor baan leeyahay. edit with elementor markaan idhahdo okay, sidan markuu inoogu soo baxo add new section full columns ayaan dooranayaa. dabeedna waxaan leeyahay sectionka edit section, then style tag, style baan tegayaa, dabeedna background, dabeedna color, dabeedna waxaan u sameynayaa color baan u sameynayaa. colorka baan u sameynayaa. okay, colorka markaan u sameeyo waxaan leeyahay kan baan soo qaadanayaa, bartaas ayaan dhigayaa. then waxaan odhanayaa edit baan leeyahay, style baan tegayaa, colorka waxaan ka dhigayaa caddaan. then waxaan leeyahay qoraalka waxaan leeyahay what I can do, what I can do. okay, I can do leeyahay exclamation marka wada socotaa leeyahay markaa what I can do baan leeyahay. style baan tegayaa, typography baan tegi, then waxaan leeyahay 200 ka dhig. okay, 200 ayaan ka dhigaynaa. bartana 55 baan ka dhigaya what I can do. qodobka labaad waxaan sameynaya waxaan soo qaadanayaa dhibcahaas daba yaala midka dhibcaha oo ah divider. taas markaan noqonayaa ama ka search garanayaa dividerka saas aan soo daraagaranayaa waxaan dhigayaa halkan markaan dhigo waa liidka dheer ee madow. kow weliskiisa waan yareynayaa, waxaan ka dhigayaa 5 baan ka dhigayaa, 4 baan ka dhigayaa. center baan dhigayaa, center markaan dhigo waxaan ka dhigayaa halkaa styleka dotted baan ka dhigayaa. dotted markaan ka dhigo waxaan tegayaa style, dabeedna waxaan leeyahay colorkiisu waa caddaan. colorkiisu waa caddaan baan leeyahay. halkaas oo ah weightka waan kordhinayaa, waxaan ka dhigayaa 5. okay, halkan oo ah gaabka waan yareynayaa, waxaan ka dhigayaa 3. contentiga ayaan dib ugu noqonayaa, widthkiisa aan 4 ka dhigay waxaan ka dhigayaa, waxaan doonayaa inaan dhibcaha farabadiyo, waxaan ka dhigayaa 10. okay, wakaa ama waxaan ka dhigayaa waa 8. okay, waxaan soo gelaynaa 3 column. waxaan leeyahay intersection baan soo qaadanayaa, dabeedna saas ayaan xoogayaa dhigayaa. markaan dhigo columnkan ayaan click siinayaa, right click baan siinayaa, waxaan leeyahay duplicate 3 column oo isleeg ayay ii noqdeen. okay, kan ayaan click siinayaa, style baan tegayaa, style markaan tago waxaan leeyahay markaan furto waxaan soo qaadanayaa icon box. icon boxka kan baan saa usoo daraagaraynaya. markaan saa usoo daraagareeyo waxaan sameynayaa descriptionka meesha ka saarayaa, walaalka dheer description ka saarayaa. halka headingka waxaan ku qorayaa web design and development baan ku qorayaa. halkan waa iconka waan sii dhex gelayaa, dabeedna
halkaa waxaan ka search garanayaa laptop, dan kaas ayaan click siinayaa, insert ayaan odhanayaa. Okay, style baan tegayaa. Style markaan tago waxa waa centerka. Okay, iconka waxaan leeyahay kalarkiisu waa caddaan. Okay, space waxba samayn maayo. Sizekiisa intaas baan iskaga dhiganayaa. Okay, contentiga waxaan ka dhigayaa kalarkeeda caddaan ayaan ka dhigayaa. Caddaan markaan ka dhigo, caddaan baan ka dhigay. Caddaan markaan ka dhigo typography-ga waxaan ka dhigayaa 500 baan ka dhigayaa halkaa. Kan waxaan ka dhigayaa 20 ayaan ka dhigayaa, 20 baan ka dhigayaa. Bas intaas ayaan ka qabanayaa halkan. Copy ayaan odhanayaa. Column labaad ayaan click siinayaa, dabeedna paste ayaan odhanayaa. Paste ayaan odhanayaa. Dabeedna qoraalka meesha waan ku masaxayaa. Waxaan ku bedelayaa digital marketer. Digital marketing ayaan ku bedelayaa. Iconkana waxaan ku bedelayaa halkaa haddaan chart ka search gareeyo iyo haddaan digital ka search gareeyo waa isku mid. Kaas ayaan qaadanayaa, insert baan leeyahay. Okay, mar labaad kan ayaan click siinayaa, dabeedna paste ayaan odhanayaa. Paste markaan idhaahdo qoraalka waan bedelayaa. waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto, waad ka mid noqoto saaxiibada nagu xidhan, like iyo share ayaan ka dhigayaa. Okay, iconkana waan sii dhex gelayaa, waxaan ka dhigayaa paste ayaan odhanayaa. Dabeedna qoraalka meesha waan ku masaxayaa. Waxaan ku bedelayaa digital marketer. Digital marketing ayaan ku bedelayaa. Iconkana waxaan ku bedelayaa halkaa haddaan chart ka search gareeyo iyo haddaan digital ka search gareeyo waa isku mid. Kaas ayaan qaadanayaa, insert baan leeyahay. Okay, mar labaad kan ayaan click siinayaa, dabeedna paste ayaan odhanayaa. Paste markaan idhaahdo qoraalka waan bedelayaa, waxaan ka dhigayaa graphic design ayaan ka dhigayaa. Okay, iconkana waan sii dhex gelayaa, waxaan ka dhigayaa, waxaan search garaynayaa image kaasaan soo qaadanayaa. Okay, waxay harsan hover bay leeyihiin. Hoverka waxaan ku sameynayaa stage baan tegayaa. Stage markaan joogo icon baan leeyahay, hover baan leeyahay. Maya waxaan tegayaa column, edit column. Markuu ii soo saaro hover baan leeyahay. Hoverka waxaan leeyahay classic background type, classic colorka waa kan leeyahay madow ka dhig. Okay, intaas ayaan sameynayaa. Dabeedna halkaasaan istaagayaa columnka. Dabeedna waxaan leeyahay copy. Dabeedna kan baan tegayaa. Dabeedna waxaan leeyahay paste style. Kana waxaan leeyahay paste style. Saddexdiiba saas ayaan ku sameeyey. Okay, waxaan sameynayaa qaybta labaad, follow me on. Waxaan sameynayaa tan ayaan odhanayaa duplicate. Intersectionka ayaan delete garaynayaa. Markaan intersectionka delete garayo, waxaan sameynayaa sectionka ayaan click siinayaa. Dabeedna kalarka ayaan ka bedelayaa. Waxaan ka dhigayaa caddaan markaan ka dhigo, kan waxaan ka dhigayaa farta ayaan click siinayaa headingka. Dabeedna style baan tegayaa. Dabeedna kalarkeeda waxaan ka dhigayaa madow. Okay, madow markaan ka dhigo
faderka ayaan click siinayaa then fartiisa colorkiisa waxaan ka dhigayaa isagana madow. sectionka waan ku noqonayaa, waxaan ka dhigayaa colorka si fiican caddaan. okay, haddaan markaan ka dhigo waxaan soo gelinayaa social icons. markaan fartaa bedelo, farta markaan bedelayo contentiga waxaan leeyahay follow me on okay, waxaan soo gelinayaa social iconska. halkan ayaan ka search gareynayaa social icons baan kusoo daraagaranayaa. then waa saddexdaas mid cusub baad ku dari kartaa, sii dhex gelisaa, halkan baad ka search gareynaysaa whatsapp oo kale, click baad leedahay insert. haddaad doonto linkigii baa lagaa doonayaa whatsappka inaad halkaa dhigto. okay, add new kalaad odhan kartaa, halkan baad ka search gareyn kartaa, halkan baad tegeysaa leedahay Google Plus. okay, saa markaad ugu soo dardarto halkaa add new ka hooseysa waxaa ku qoran shape, waa rounded. imika waa rounded, waad aragtaa circle baad ka dhigeysa. okay, waxaad tegeysaa Facebook, click baad oranaysaa, dabeedna waxaad search gareynaysaa brands baan dooranayna, dabeedna waxaan dooranayna f, dabeedna kuwan baynu soo qaadanaa, tan bay soo qaadanayna. okay, waxaad aragtaa inay mid waliba official colorkii wadato, color isku mida waa duminayso. style baad tegeysaa, waxaad leedahay custom color dhamaanto. colorkaas ayaan u sameynayaa. colorkan markaan u sameeyo sizekoodana kaa defaultiga awoodaa space baan u sameynaya. okay, icon hover baan u sameynaya, break color baan isna ku dhufanayaa, madow baan ka dhigaya. okay, intaas ayaan taana ku gabagabeynayaa. kan baan bottomka ka yara jarayaa, spacekaas advance baan leeyahay, padding 10 pixel ka go ayaan leenahay. okay, qaybta saddexaad waxa weeyaan waa nerd professional developer. add new section baan leeyahay, ka koobaad baan leeyahay full color modis. full color modis markaan idhaahdo layoutkan joogo heightka waxaan leeyahay minimum height 400 kaasaan u deysanayaa, dabeedna style baan tegayaa. style markaan tago waxaan leeyahay background tape classic image soo doora baan leeyahay, imagekaasaan dooranayaa, kadibna select baan leeyahay. positionka waxaan leeyahay center. attachmentigana waxaan leeyahay fixed. repeatka waxaan leeyahay no repeat, kana waxaan leeyahay global. intaa markaan idhaahdo dib ayaan noqonayaa, waxaan leeyahay heading baan soo gashanaya. heading waxaan leeyahay centerka dhig, waxaan leeyahay need
need a professional developer. stage baan tegayaa, kalarka waxaan ka dhigayaa caddaan ayaan kalar ka dhigayaa. then typography baan tegayaa, sizekeeda waan kordhinayaa, kadibna waxaan ka dhigayaa 500. okay, intaas ayay ku eg tahay. waxaan soo gelinayaa spacer baan ka soo gelinayaa, waxaan ka dhigayaa 8. kadibna button baan ka soo gelinayaa, button ayaan ka hooseysiinayaa, kadibna button waxaan leeyahay centerka tag. markaana waxaan ka dhigayaa hire me waan ka dhigayaa. stage baan tegayaa, background kalarka ayaan bedelayaa, waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa okay. intaa markaan ka dhigo waxaan leeyahay typography 16 baan ka dhigayaa farta ama 18. tan waxaan ka dhigayaa 300 baan ka dhigayaa, weightka 300 baan ka dhigayaa. okay, hover ayuu u baahan yahay. waxaan tegaynaa style, then waxaan tegaynaa hover, then background tape classic baan leenahay, then color, then waxaan leenahay color ma jiro, transparent. update baan leenahay.